gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay kala dirista guddiga maaliyadda baarlamaanka uu ku sameeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad. Gudoomiye Mursal oo hadda ku sugan dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay inuu tagi doono berito magaalada Muqdisho dibna ay u eegi doonaan go'aanka kala dirista guddiga maaliyadda si loo xaqiijiyo ayuu yiri inuu waafaqsan yahay xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha ugu horeyntiina waxay weydiisay siduu u arko go'aanka lagu kala diray guddi hoosaadka maaliyadda baarlamaanka. Falastiin waxaan ku leeyahay horta berritaan safar ahay oo aan tegi doono Muqdisho. Arrinkaas waxay la tahay xamar markaan tago markaasaan ka hadli doonaa insha Allahu tacaala. baarlamaankana degdeg fadhigiisa uu qabsan doonaa marka taas meeshaasaan u dayno insha Allah. marka sharciyada ka waran dhinaca sharciyada gudoomiyihii baarlamaanka tahay guddigii maaliyadda ee la xisaabtamaya xukuumadda iyo hay-adaha kale dawladda ayaa meesha ka baxay. sidee u aragtaa mase la socota adiga intii aan la kala dirin ka hor ma lagu sheegay? ani waxay la tahay dhowr badanna dhowr jeerna waa ku celcelinay annaga waxaan ilaalin doonaa xeer hoosaadka iyo dastuurka waddankaas uu leeyahay wax xeer hoosaadkaas ka baxsanna golaha shacabka ma isticmaali doono iyo dastuurka. marka xeer hoosaadka muxuu ka qabaa in la kala diro guddiga maaliyadda? waxay la tahay horta qof shaqo markuu kaa qaadayo qofka shaqada ku siiyaa shaqada kaa qaadi kara marka waxay la tahay baarlamaanka arrinkaani guddoonkana baaritaan ay sameeyeen weli waxyaabihii ay soo saareen aniga ma akrinin markaan tago oo baaritaanka ay sameeyeen iyo wixii aan fiiriyo kadib ayaan ka wada hadli doonaa insha Allahu tacaala laakiin waxaan ku xaqiijinaa in aan la samayn doonin wax ka baxsan xeer hoosaadka. marka dad badan xeer hoosaadka lama socdaan marka laga reebo dad aad u tiro yar oo raacday guddigan ma caddahay waxyaabaha uu ku mutaysan kara in la kala diro iyo cidda awoodda u leh inay kala dirto ma ku caddahay? horta caqliga wuxuu sheegay qof kasta si uu ku yimid ayuu ku baxaya saasigo. marka sidee guddigu ku yimid oo lagu soo doortay? taas markaan xagga tagnaan faahfaahin doonaa inaan ka hor dhacmaro because go-aanka baarlamaanka asaa iskale laakiin waa la fasiri doonaa aniga keliya ma fasiri doono waxay u taallaa golaha shacabkay u taallaa taas markaas markaday leedahay. dadka qaar ka mid a ama qaar ka mid a xildhibaanada waxay sheegeen shalay in guddoomiyuhu uusan xaq u lahayn inuu wax ka bedelo go-aanka uu gaaray guddoomiye ku-xigeenka ee ah in guddiga la kala diro. awood intee la ega u leedahay in go-aankaasi aad ka hor timaado? waxay la tahay zero ani waxaan kuu sheegaya waxaa wax ka hor imaanaya shaksiga maaha waddanka waddan jira waaye magaciisa Soomaaliya la yiraahdo waa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shuruuc leeyahay shakhsi wax kama hor imaan karo sharciyan ka hadlaynaa annaga shuruucda ma raaci doonaa shakhsi wax kama hor imaan karo. markii ay soo baxdeen in la kala diro guddigii maaliyadda waxyaabaha ay dadka siyaasadda Soomaaliya aadka ula socdaan ay soo hadal qaadeen waxay ahayd in sababtii markii hore guddoomiyihii hore baarlamaanka meesha looga saaray oo adiga lagu keenay xukuumadduna ay kugu ololeynaysa ay ahayd in aadan ka hor imaan waxyaabaha ay xukuumaddu rabto. ma u aragtaa in sababta guddoomiyihii hore uga baxay adna meesha aa ku timid ay tahay inaad kaga dhawaato xukuumadda? waxay la tahay horta arrimahaasi waa arrimo un iska wala awaal ah institutionkan wuu ka madax banaan yahay baarlamaanka wuxuu ka madax banaan yahay institutionada kale ama xukuumadda ha ahaato ama kuwa kale marka ilmaha caqli hadda sheegaya in baarlamaanka uu hoos tagayo ama uu ku midmaayo golaha fulinta waxaasi ma jiraan wax jira maaha marka qof kastana waxay ku qasban tahay shuruucda waddanka u taalla inay raacdo marka wax shaksi inta la keenay kadibna shaksi uu iska samaynayo ama qofku meel ku biiri kara ama wuxuu rabo iska samaynayo maaha waddanku waa waddan shuruuc leeyahay marka shuruucdaasaa qofka hagay guddoomiye ha noqdo ama wax kale ha noqdo marka arrimahan kalena sidaan kuu sheegay halkooda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa go-aankiisa iyo ama guddoonka magaciisa ku hadlo aragtidiisa siday la aheed u sameeyey saasuu u dhigay markaan tagno baaritaankii wixii ay sameeyeen markaas kadib aan waafajin doono. marka haddii baaritaanka uu ka hor yimaado xeer hoosaadkii baarlamaanka maxaad samaynaysaa? waxay la tahay su-aashaadii hore unbaad kusoo celcelinaysaa
marka maxaa tallaabo qaadaysaa haddii aad ogaato in uu baalmarsanaa sharciga kala diristii guddiga oo tilaabo horta aniga igu gaara oo aniga keliya aan qaadayo ma jirto meesha waxaa fadhida 276 xildhibaana fadhida oo Soomaali oo dhan matesha marka meel qof shakhsiya keliya tilaabo qaadi kara ma aha taas ula soco horta marka waxaa tilaabada qaadi kara waa sharcigaasi sharcigaas meeshu aad u baa la aadi doonaa moogiye nin kasta haddii uu rabo tilaabadu rabo uu qaadayo dee waddan taagnaanayo ma jira marka tilaabo aniga ii gaaro aniga aan qaadayo ma laha tilaabadan qaadayo waa mid ku dhisan sharciga waa mid ku dhisan xeeroosaadka golaha shacabka marka wuxuu ka qabo un baan waafajin doonaa xeeroosaadka haddii uu qabo guddigan in guddoonka baarlamaanka uu kala diri karana xeeroosaadka siduu qabaan aadayna haddii xeeroosaadka uu qabo guddigan in guddoon baarlamaan uusan kala diri karinna waxaan aadaynaa guddiga xeeroosaadkii maxaa la yidhahdaa ma qabo in la kala diro marka mar walba waxaan hogaamin doona waxay noqonaysaa waa sharciga baarlamaanka uu dejistay oo xeeroosaadka baarlamaanka keliya ma ahane xukuumadda lagula xisaabtamo oo waa dee aad u ballaaran yahay marka kaas unbay noqon doontaa midka wax kala qaaday shaksi maaha shaksi marka laga hadlaayo dee waddan shaksi keliya iska hogaamiyo oo aragtidiisa iyo fikirkiisa lagu hogaamiyo caalamkuma kumaba yaalla marka waxaa leedahay dib u eegisaan ku samayn doonaa dastuurka wuxuu ka qabaana waafajin doonaa absolutely waxay sharciga ka qabaan waafajinaynaa sharci maysa halkaan ma taalo shaksi wax la yidhaahdo shaksi kasta hadduu rabo haddii wuxuu rabo iska sameeyo meeshaan maxaa kala soconaya